السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامي وولاشينا نورا عافماد كوار إن شاء الله ميلو بجوبتين إن شاء الله. ما أنتو حادي وضع وحانون بدن نعاد ونحتم بدن سادو جدين مقدشو آد بالوغو باباي وقرح وحانون بدن ومروا بعضنا ماركتا أيامي قدام بيكا دعايو كمديهاي maanta hooyo badan baa murug ku seexanayso, aabo badan baa murug ku seexanaya. Ilmo badan oo masaakiin ah iskool u socday ayaa baaba'ay. Hooyo meel iska fadhido iska ganacsanaysa ayaa baaba'day. Aabo iska ganacsanaya asagana sidoo meesha ku baaba'ay. Dadkii ummadii ka dhimatay oo kama ka wada saqiiran ama ka dhinteen ayaan tacsi u diray insha Allah. walaal waxaan idin leeyahay insha Allah kulligiinaba kolba anaga inagu wada dhinteen waa dadkeena anaga nagu wada geeriyooday. Ilaahay naxariis janno Allah ka waraabiyo insha Allah intii geeriyootay intii dhimatayna intii dhaawac ahaana waxaan leeyahay insha Allah caafimaad Allah siiyo insha Allah. una duceeya ummadeena Soomaaliyeed kolba anaga wax kale iskuma tari karno waa un duco u duceeyo insha Allah ilaahay caafiyo Allah u shafeeco insha Allah. waxaan la yaabanahay oo maanta halkan soo fariisiyay waxa waaye Soomaali inay soo kobcdo lama rabo miyaa Soomaali inay heer gaarto lama rabo miyaa Soomaali inay horumar gaarto sida wadamada qaarkiis oo kale lama rabo miyaa waxaan la yaabanahay haddana dadka ajaanibka anagana saacidayay hoosteena ku nool yihiin shaaricada noo dhisaayeen hadda sidaan aniga maanta maqliyay waxay dhisaayeen shaarica afgooye ilaa Muqdisho isku xiran ayay dhisaayeen dadkaas ajaanibka dadka Turkiga meesha ku dhamaadan ayagana dad badan oo iyana Turki baa meesha ku baaba'ay marka xanuun bay leedahay Soomaaliyay why aan isku laaneynaa sababta isku baabi'inayno waa maxay kolba qofka aan la dilayo ikan wax soo diriyo waa dadkii Soomaali waa sababta isku leenay waa maxay kan wax soo dirsanayo oo dadkii leeyahay soo laay aad leedahay diin baan ku noolahay diinta aad ku nooshahay tee waaye ayaan rabaa in ogaado anigu cilmi ilmsaas u melihi laakiin markaad fikirtid fikradaada ahaan waa isla yaabaysaa diinta ku tiri waa maxay ummadda Soomaaliyeed ama ummadda islaamka kula shahaadanayo kula salaadayo takbiirta afka ku hay sidaad oo kaleete Ilaahay kuma dhihin laay Ilaahay kuma dhihin baabi'i Ilaahay kuma dhihin gabli ummadaas amaanta gablisay maanta waxaan maleynaa inaad raaxo ku seexan doontid ilaa dad islaam dhiigiisad qabtaay kuma habaareeno Allah hadii tikbisan ku leenahay insha Allah sababta anaga isku leenayno anigu ma garan karo sababta anaga isku leenayno anaga ma garan karo mana garan karo wadankeeni goortu maaragtay intuu nabad noqdo oo dib ugu laabano si raaxa ah cabsi darro ah ugu noolaan doono ma garan karo marka insha Allah aniga waxaan idin rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed maskaxdooda la bedelay Allah soo hadiyeeyo wiilal dhalinyaro badan oo u jeeday ayagoo dhowr 20 jir ah 19 jir ah waxba kala ogeyn waxa la ord baabuurka iskaxay wax soo qarxay waxa laga yaabaa baabuurku wuxuu u saaray inuu aqoon u lahayn asagii la soo qabto meel lagu dilo asagina markii maandooda waxaan u jeeday fiidiyoyaal badan baan YouTube-ka Soomaaliga ka daawanayay 4 wiil ayaa la soo qabtay Soomaali ah ma sha Allah wiilal yar shabaab oo qurux badan kan ugu weyn wuxuu ahaa 24 jir
wuxuu yiri waa maalintaasna iyagana waxay sharciga aan maxkamadda soo goysay in la toogto la dilo. mid baa aada uga naxay, wuxuu yiri waa abtigay baa wuxuu igu yiri baabuur kaxay, bas weyn ah kaxay buu igu yiri, uu yiri baskii buu isagana gaariga xitaa si loo wada ma yaqaano, gaarigii buu kaxeeyey dhowr jeer buu shil ku galay. leena ilaahay ma qadarin masunta inuu dad qarxiya, ilaahay baa badbaadiyay. ilaahay wuxuu qadiray marka shilkaas uu galay ilaa gaarigana waxaa saarnaa bambo weyn baa ku xirneed. ilaahay baa ka qabta ummadii, dowladii baa qabatay. marka dowladda iyadana waxaan su-aalayaa waa dadkan waa lasoo dirsaday, maskaxdii baa laga soo dhaqay, waa maskaxdii baa laga soo bedelay. in la toogto ma aha, waa isaga laftigiisa ciyaal waa matalan 17 jiraa ku jiray, 16 jiraa ku jiray. waxaa laga yaabaa isaga laftigiisa in la handaday oo maaragta oo cabsi dartiis wuxuu u sameynayay. horta kii dhinta waaba dhinta, laakiin kii nool asagana cunug xumaan loogu bedelo ma fiicno. waxaa fiican maaragtaa in wanaaga la tuso, intii xukun sharciyeed uu yahay la mariyo, laakiin uusan la dilin la tooganin. waayo annagaa dhamaanayno, qaraxa farlaasana dhameynayo, xabadda dadka dhameynayso. marka kii kaleeto lasoo qabtayna dowladda gacanta soo gashay ma aha in la dilo. anigu taas waan kasoo horjeedaa. hooyo badan baa horta maanta aada u oynaysaa. taas waxaa leeyahay ilaahay samar allaha ka siiyo insha allah, qalbigooda qalabtoodana allah u dejiyo insha allah. marka ummadeena soomaaliyeed ilaahay ka cabsada. waan gubanay, waan hurnay. wadanka annaga aan ku noolnahay qurbaha ah xitaa nabad kuma joogno. ehelkii iyo qaraabadii weli Soomaali bay joogaan. qofaa kusoo wacay adoo gariiraysid wadnaha ku xanuunaya, teleefonka qabanaysaa oo leedahay alla ilaah maxaa yeeri doono. marka naxdintaas ayaga kuwii ayaga wadanka ku nool annagaa kasii daran, masaakiintan qurbaha ku nool ayaa kasii daran. walaalayaal dhibka naga dhaaf, ilaahay ka cabsada. dadkan isku sheegayaan maaragta ay leeyihiin diin baa annagana soo dirsatay ummadda baabi'inayso, diinta ha ku qaraabanin ahee dad waxaa tihiin subxaan allah damiirka iyo shaksiyadda ka dhimata ayaa tihiin. dad waxaa tihiin dhiigga islaamka idiin macaanaaday ayaa tihiin. marka dhiigga islaamka sidoo kafee iyo idin noqonina iyo idin saa si maarta qaxwada way dadka way qabataa Soomaa. marka haddii dad dilinba qaxwadii kale way ka maqan tahay. marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada, ilaahay idin soo hadiyeeyo subxaan allah. waadna baabi'iseen awal banagoo qabiil iyo yuu yahay iyo taa isku laaneynay ayaa haddana waxaan hoosta naga soo galay. ma doonayn miyaa inaan wax qabsano, ma doonayn miyaa wadankeena inaan ku noqono, ma doonayn miyaa sida wadamada kaleeto inaan maaragta heer gaarno, ma doonayn miyaa taas. qofkii wax barto oo dhaha alile Soomaali baan ku noqonayaa, kii maqaayad soo barto xagga maqaayadda suste nidaamkiisa soo barto oo Soomaali aado maqaayad furto oo wadanka qurxiyo oo dadka shaqo siiyo, bab waa la qarxiyo. maxaad ka faa'iiday? malaha qofkaas waxa sameeyay waxa maleynayay si raaxo leh u seexan doono. ila dhiig islaamka wuxuu u yahay qaxwe. haye gabar Soomaaliyeed baa waxbay soo baratay ama social media ha ku jirto ama maaragta meel kale ha ku jirto, dhaqdhaqaaq kale ha sameyso, noloshii baa loo maaragta loo quur weynaya, waa la qalaa. why oo maxaa dhacay? annaga isma caawin karna miya? malmetelin aniga hadda walaashiina ahay Soomaaliya oo dhan badan in badan aan kasoo maqanahay. had Soomaaliya baan kala imaaday. haddii aan qof wax soo barata ahay idinka idin raba inaan idin caawiyo matalan,
haddii dukaan xitaa aan soo barto dukaankaas haddaan furo oo 2 qof shaqo siiyo oo mishaarkiisa oo maaragta bil walba u imaado soo raaxa ma aha ma dhib baa idinku haya waa may laakiin ay kaleeta ayaa dhiigaygu u macaano si qaxwada ugu yaho oo i gablaminaya allah gablamay ma dhihi kariye maanta waa murug maalin walba waa murug waxaan la yaabana murugtana ilaahana horta naga qaado waxaana la yaabanahay ummadayna goortay maaragta aqli yeelan doonto oo maskaxiyan maaragta fikri doonto qabiilka iska dayn doono yay tahay iyuuyaha iska dayn doono ama waa in adeerkay ilma adeerkayga iska dayn doono ilaahay hakasa taas insha allah anu maanta warya idinku daalin aan lafkayga waan xanuunsanahay qandho xun baa hayso hergab xun baa hayo marka maanta waxaa halkaa isoo firi waa murugtaas wallaahi bilah waa murugtaas marka insha allah aniga ilaahay wax kale kuma caawin karo ilaahay waxaan uga baryayaa bes duco meedadaas dhimatayna ilaahay maaragta u naxariisto insha allah ummadeena soomaaliyana ilaahay dhibkaa ka qaado wax kale aniga aan dhihi karan malahan ilaahay waxaan leeyahay kulligeenaba soomaali meel walba joogto qalbigooda inuu ilaahay saameeyo qalbtooda ilaahay inuu saameeyo anigu ma jeceli video live wax inaan soo galgalo laakiin insha allah bal wixii aniga igu soo kordhaadanaado ama igu soo cusub insha allah idin soo gudbin doonaa marka hadda aniga xataa wadanka aan ku noolahay waxaa kasoo wareegatay aan u maleynayaa 3 bilood wiil baa uu ka tagay wax bartay dhaqtar buu ahaa xagga wadnaha beerka kaliyaha diga wax saabsan ayuu ahaa waddankan aan joogin aad baa looga jeclaa wiilkii wuxuu yiri maya waxaan aaday aniga xagga Soomaaliya dadkayga raba inaan wax u qabto dadkayga raba inaan caawiyo annagii dhan waan wada naxnay shock baan ugu dhacay markaas waxaan ku dhahnay maya hebel u joog ma bixi kartid hadda malkamoodka ma malaha wada asagana ma aqaana Soomaaliya ka dhacay 2 bilood iyo dhowr beri joogay wiilka asagoo gurigiisa joogo iyo ma hotel buu ahaa ma sheegay ma kala cadeyn kariye baanti loo imaado la afduubtay 3 isbuuc isku xigta ayaa meedkiisa la raadinayay iyo meesha ku dambeeyay qofkii ilaa qof soo safray soo noqda ma ahayn waxaa la helay soo qalan ayaa la soo helay qoorta laga qalay ya marka qofka saa u galay wiilkaas talo ma janu gala talo ma raaxo ku seexan doonaa talo muxbuu ka faa'iiday matijaar buu ku noqday waa may ilaan qofka maanta haddii wax yar qalad uu galo war xitaa deen qofka markuu qaato qalbiga ayaa horeeyo adna qof dhan dhiigiis ayaad ku fikiraysaa ilaaha qaarka hadii waafajiyo annagoo dhan ilaaha qaarkana waafajiyo insha allah ilaahay waxaan ka baryaa murugtan maanta dhacday intaas allah nooga ekeysiyo ummadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala aha samadaas joogo ilaahay intuu wax ku soo rido qalbtooda bedesho allah ka soo waa daalnay mar alla markaas dhahna alla wadankii wuu qaboobay haddaad ku raaxaysan doontaa balaaya haw soo tiraahda marka ilaahay balaayada naga qabto ummadeenana ilaahay maaragta qalbigoodana allah dejiyaan leeyahay insha allah waan idin salaamayaa
insha allah kolba aniga fikradeeda intaas waaye, intaasaan fikradeeda ay tahay, wixii aniga qalubteeda ku jiro waa intaas. haddii idin si qalad iigu fahantaan hadda waad iisoo qori doonteen insha allah, laakiin anu uma maleyn inaan wax qalad dhahay, waayo maanta wax taagan waa un dhib, marka dhibka allah naga qaado insha allah. wax kale aniga dhihi kara malahan insha allah. waa idin salaamayaa, waa idin jeclahay kulligiinaba, waa walaashiin insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.